kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 22 bisha shanaad ee sanadka 2021 wararkana maanta ee Bolas Media waxaynu ku eegi doonaa farmaajo ka maqan shirka ka furmay teendada afisyoon ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka xabad joojin laga gaaray Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan teendada afisyoon waxaa goordhow si rasmi ah uga furmay shirka arrimaha doorashooyinka ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa shir gudoominayay wasaaraha xukuumadda xirgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooblo iyadoo oo ay ka qayb galayeen hogaamiyaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir arrimaha shirka diiradda lagu saaray ayaa waxaa ka mid ahaa dhameystirka heshiiskii 17 Sebtembar iyo xalinta khilaafaadka ka taagan qabsoomida doorashada dalka ee sanadkan 2021 sidoo kale shirka ayaa bilowday isagoo uu ka maqan yahay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horey qayb uga ahaa wada hadaladii fashilmay ee magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Muqdisho waa mid isha lagu wada hayo waxa ka soo bixi doona shirkani oo xal loogu raadinayo doorashooyinka dalka oo ay isku khilaafeen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka hor furitaanka shirka waxa ay hogaamiyaasha Soomaalida ay yeesheen kulamo hordhac u ah oo ay uga wada hadlayaan xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka si kastaba wuxuu shirkani ku soo aadayaa xilli xasaasi ah oo ay Soomaaliya ku jirto marxalad adag oo ka dhalatay ismariwaaga ka taagan doorashooyinka 2021 haatan xabad joojinta laga gaaray dagaalkii Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah oo bilowday saaka aroortii kadib dagaal socday muddo 12 maalmood ah xabad joojinta ayaa waxaa ka shaqeeyay dowladda Masar waxaana ugu horreyn ku dhawaaqay golaha wasiirada Israa'iil oo sheegay inay xabad joojinta iskood ah ay galeen oo aan wax shuruud ah ku xirneen dhinaca kale kooxaha Falastiin ee marinka Gaza ayaa dhinacooda u hoggaansamay xabad joojinta iyagoona daqiiqadihii ugu dambeeyay gantaalo badan ku riday inka Yuhuudda ee u dhow marinka Gaza diyaaradaha dagaalka Yuhuudda maraakiibta iyo madaafiicda ayaa 12 maalmood duqeyn ku hayay marinka Gaza waxaana ka dhashay gaaraya 232 dhimasho ah oo ay ku jiraan 69 caruur ah iyo 39 haweeney ah waxaana ku dhaawacmay dad gaaraya ilaa 1900 iyadoo ay burburiyeen boqolaal dhismo iyo daaro ah kooxaha reer Falastiin ee ay ugu horeeyaan Hamas iyo Islamic Jihad ayaa gantaalihii ugu badnaa ku weeraray magaalooyinka Yuhuudda waxayna ku rideen in ka badan 4,000 oo gantaal iyadoo lagu diray 12 qof oo Israa'iiliyiin ah iyo dhaawac ku dhow 300 oo qof markii uu dhaqan galay heshiiska xabad joojinta ayaa waxaa dabaaldegyo ka bilowday duleedka reer Falastiin iyagoo u dabaaldegaya guusha ay ka soo hoyeen cadowgooda Israa'iil sarkaal ka tirsan ururka Hamas oo kalada AB u waramay waxa uu sheegay xabad joojinta ay Israa'iil ku dhawaaqday in ay ka dhigan tahay guul shacabka Falastiin u soo hoyatay iyo guul darro soo gaartay wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu